MADHIBAAN ومدحد سومال MADHIBAAN ومدحدين ودغاي معنيه مكان كلها MADHIBAAN سوكاس MADHIBAAن صعب يا مسحرة waxaan ku faraxsanahay rabbi subxaanahu wa ta'ala inuu ii dooray in aan ahaado MADHIBAAN anigoo islaama muslim ah Somali ah diinta islaamka haysta beesha MADHIBAAN ah waxba maanta ma tabanayno laakiin in magaca MADHIBAAN lagu waxa la dhalinyarta in magaca MADHIBAAN lagu faano kor loo qaado waxa dib noo dhigay maanta waxa weeye magaca oo laga cararayo identity problem bayna haysta caawolayn hadda kuma soo koobi karno sharafta iyo waxtarka MADHIBAAN ay leeyihiin laakiin waxaan u baahanahay inaynu maanta aynu ku faano cidda ay nahay oo qof waliba MADHIBAAN maanta sidoo bartaa ugu soo istaagay loogu soo istaago meesha jooga Cabdinaasir la yiraahdo ayaa ila soo hadlay igu yiri Faysalow miyaad imanaynin MADHIBAANkiini baa maanta shirle waxa ku yiri ma imanayo waxa laga yaabaa in la igu leebel garay qabiilkayga oo la yiraahdo maanta waa sidaas marka wuxuu igu yiri Faysalow maanta haddaan North America joogno cidna loo yaqaan dhamaantiin waxa weeyaan MADHIBAAN markuu guuleysto ayaan anaguna guuleysanaynaa tamaanta ay keenta waa taa aad baan ku faraxsanahay community-ga MADHIBAANka ina hoos u dhahna ma waa ina kor u dhahnaa MADHIBAAN hadda tahay waa ina gacanta taagtaa waa ina kor u qaylisaa dadka Soomaalida u sharaf badan ayaa tihiin waxaan sheegayaa caawa waxyaalo badan oo la qarqariyo waa in ay joojisaa Soomaalida dulmiga lagu wado MADHIBAANka oo Soomaaliya ka socota especially dawladda Soomaaliya ama sideedaba historically dad waxaa jirta si kala loo fiiriyo taasna ma aha waa inay boos ka helaan waa inay madax noqdaan waa inay Soomaalida hogaamiyaan dadka walaalayaal dad sharaf la tihiin adeeraday baa jooga walaalahay baa jooga gabdhihii quruxda badnaa baa jooga community aad qurux badan baa tihiin caawana waxaanu ku faraxsanahay saad u soo baxdeen oo proud people out tihiin waa inaan ka tagnaa kuturukuteenta Soomaaliya waa inaan hormarinaa community-ga raba dadkooda inay hormariyaan waa inaan xaq darrada joojinaa especially dawladda Soomaaliya waa inay ku dhawaaqdaa dadka xaq darrada lagu wado inay joojiso waa inay ku dhawaaqdaa qorraxda gacanta laguma qarin karo waxa la soo gaaray waqtigii hoggaanka ummadda Soomaaliyeed ay hormuud u noqon lahaayeen dhalinyarada beesha MADHIBAAN waxa la soo gaaray waqtigii ay hogaamin lahaayeen qurba joogta waxa la soo gaaray waqtigii ay hogaamin lahaayeen dalka Soomaaliya madaxda Soomaaliyeed halkan fariintan uga diraya waxay tahay waxa la soo gaaray waqtigii xuquuqdii dadkan ka maqnayd ay helaan oo ah inay qabtaan jagada ugu sarreysa dalka Soomaaliya oo madaxweyne inuu dalka MADHIBAAN ka noqdo aniga waxaan ku magac dheerahay Dr. Ubax Keenan waxa aniga ka mid ahay gabdhihii maxay ahayd soo saaray MADHIBAANka gabdhahooda oo medical student ka soo baxay waxyaro kaftan aan ku darayaa annaga Soomaalidu inta isleynaysa waxbaan baranayni Soomaalida inta isleynayso qoryaha isku haystato isku maaday oo dhibaatooyin badan isku samaysay annaga dhalinyarada waxbarashaan u dirno kulligood waa wada jaamiciin maanta waxaan rabnaa dhalinyaradaas isleynaysa iyo qabiilka Soomaaliya isku dilay dadkii bedeli lahaa inay noqdaan sidaas ayaan u soo tababaraynay xorriyadda Soomaali ku faanto iyo wax kasta oo wanaagsan oo Soomaali u hirgalay waxa hormuud ka ahaa hogaamiyayaasha beelweynta MADHIBAAN baa ka ahaa
waxa weeye dadkayagu waa dad soo halgamay axmed guray waxaan u haysanaa oo taariikhdayada ku haynaa inuu yahay nin madhibaana qolooyin badan baa lagu sheegaa waxaanu taariikhdayada ku haysanaa inay dad badan oo reer sheekh madhiba waqtiyadaa ku dhinteen waxaanu taariikh ku haynaa sayidka maxamed cabdilla xasan ciidamadii ugu darnaa oo kamaandoosta ahaa uu yalaxlo ula baxay inay dhammaantood madhibaan ahaayeen waxaanu taariikhda ku haysanaa inay maaragtay dagaalkii 77 ciidamadii ugu darnaa ee meelaha khatarta la gelin jiray inay madhibaan ahaayeen marka qof kasta oo madhibaana waxaan leeyahay waxa tahay qof halgamay boqortooyo soo jirtay boqortooyo guun ah goobtuna sideedaba way liicdaa laakiin goobtu ma jabto aad baad u mahadsantihiin gobay liico ha jabin Soomaalidu gumaysiga ka hor waxay ahaayeen dad farsamo yaqaaniin ah laakiin markii gumaystuhu yimid Soomaalidii waxa la baday in qofka farsamo yaqaanka farsamadii lagu caayo ama lagu duro waana sababta keentay Soomaalidu ama inay wax shahaadaan oo baryaan ama inay wax boobaan ama qabiil isku laayaan si qabiilba qabiilka kale u duudsiyo u boobo laakiin beesha sharafta leh ee madhiban waa beesha kaliya ee xalaal cunka oo qof intuu magaalo yimaado business leeyahay samaysan kara ilaa inta noolaayaan arki jiray waxaan markhaati ka ahay oo ka marakacayaa heesta daawud xanfar ee madhibaan waa madaxda Soomaal waa runtiis waxa taas aan ku cadaynayaa meel kasta oo la joogo haddii qof madhibaana inta la soo kaxeeyo lagu xidho meel jasiirada oo cidla ah waa dadka kaliya ee Soomaali ah ee noolaan kara ama isbixin kara sababta aan taas u leeyahay waxa ay tahay qof kasta oo madhibaani wuxuu yaqaanaa sida nolosha loo survive garoobo waa dadka ka shaqeeya shaqooyinka ugu muhiimsan nolosheena hadday tahay makaanig hadday tahay inay beer qodo hadday qofka kabaha maanta tola ama timaha goynaya waa designer caalami ah oo adduunyada wuxuu shaqaystaa lacag la yaabay iskuulana waa uu ka soo baxaa cududa haddii la eegayo dadka madhibaankaana goob kasta oo ay joogaan ama magaalo kasta oo Soomaaliyeed oo aad tagto qof madhibaana oo wax ka noqday oo dalkiisa anfacay oo caan ka ah magaaladaas baad ka helaysaan madhibaan micnaha madhibaankana waa madhibe means madhibaan dadka islaamka marka u sheegayno dadka gaalada waxa dhahnaa islaam wuxuu u taagan yahay peace maadaama islaamka peace u taagan yahay madhibaanna peace buu u taagan yahay qofka kaliya Soomaaliya mideen karo waa madhibaan dadka reer sheekh madhibe waa dad soo jireen ah waa dad dega shanta Soomaali oo dhan degmo iyo tuulo walba degan waa dad taariikh guun weyn leh madhibaan kuwa badan yahay boosu joogabaye burka ruux bacaad weyn halkiiyo bayra gudaheeda burca iyo hargeysiyo barbaratan iyo buhoodli bardaqaasi bayliyo halkaa tan iyo boosaasu bannaankii hobyood iyo dhammaan guriga boorweyne teer iyo bajeel iyo hobyay badi u joogaan warteen iyo bajeel iyo hobyay badi u joogaan eelbuur bannaankiisu waa bari samaadkii intaasoo baldaan oo dhambaad badi u joogtaani annagoo iswada booqana baaqunoo yahay madhibaan waa madaxda Soomaal madhibaan waa madaxdii wadadii micnihiisu maqan kala madhibaan soo kaasa madhibaan saabi musxara baligahayo waa maalintan hambalyada mudnay madhibaanka badan farxad muujiyey waa maalintan muruqeena iyo muwashada galgacal muujinay